مشاكل كأنك هيسوي حويك المها برتا كوكرا المها واحد ساتية أو قبطة أو حكمية أو حدود أيلا ودين أمر دقن سماها حاجة دتك تشوجا دقن ما هيان دين ما يقادنين أو أف صومالي كي بابا نقول أي أتكاضي واني قبل لي ما كل ملك سوق قبنا هي كلمة صومالي نكمان دلانين مشاكل كمركا عرورتي نقا قبسي waxa weeye caruurtii dhaqanna ma hayaan diinna may hantiin labadiiba way naga lumeen islaantu waxay kula hadlaysaa af ingiriisi jajaban asaguna af ingiriisi toosan buu ugu jawaabaya markay isku dhacaanna aniga lay keena oo kala furdaamiya mushkilada naga haysata marka waxa weeye caruurta haysata marka xagga la joogo ilmihi wuxuu ku leeyahay anigu I am Canadian Muslim saad oranaysaa Soomaalina wuxuu koranayaa aabaha iyo hooyadaba Soomaaliyada aabaha iyo hooyaday ayaa Soomaaliya anigu Soomaali ma yihi anigu waxaan Muslim waa ka hagsan waliba wuxuu koranayaa Canadian baan u koranayaa Canadian Muslim ka hagsan ma koranayaa Muslim Canadian baan ma fahamteen marka mushkilada naga haysata waxa weeye caruurtii sunnana garan mayso diinna garan mayso dhaqanna garan mayso cidi tarbiyadeysana waabay nagu adag tahay sidaas leeg waxaanu haynaa dad farabadan oo lumay oo ka baxay manhajkii diinta iyo dhaqankaba gabadhba way ii timi gabadhani waxay aamintay ogsoonaadana dumarku mid lagu cambaaraynayo ma aha laakiin waa dhaqan dumar ay leeyihiin dumarku kolba halkay degaan ay dhaqankooda qaataan ma igu raacsantintaa kolba meeshay degaan dumarkii Sacuudiga markaanu joognay ragga albaabka ka furi jirin ee cabaayadaha iyo niqaabka iyo bahalkan la ilaahdo burgaca xidhan jiray ayaa markay Canada yimaadeen jeans leavers xidhan waasna dumarkii ceebna kuma ahaayo dhaqankooda sidaas Umar ibn Khattab fi sahih al-Bukhari wa hadithka wada taqaana wuxuu yiri markaanu Maka joognay buu dumarka iyaga annaka ka adkayn waanaka gacanta ku haynay waxaanu unnimi buu yiri waa marka wuxuu ka hadlayaa ansaarti waxaanu unnimi rag dumarkoodu ka adag yihiin yani dumarkii baa kalmad la meesha oo la dhageystaa ragga ansaarti rag tayibiin oo wanaagsan bay haayeen dumarka way u jilicsanayeen oo u jabnaayeen reer Maka waxay haayeen Soomaaliyo kale ahaayeen oo jilciya waxa ma yaqoonin naanaga fadhiiso koonaya intaan afarta foolka soo ridin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ayaa gabadhiisii si caadi ula hadlo hadalkii ku yiri kuleeyay way ku dhirbaaxday waa naga la badbay tiri sheekadii way isbadashay qala ataruddu alayya ibnati kada naama adigu soo joogo aniga hadal soo celisay buu gabadhaadani oo miyad nabi ka fiicanta bay tiri nabiga Umar ibn Khattab marka wuxuu yiri dumarka iyagii waxay qaateen dhaqankii dumarkii ansaarta annaka dumarka iyagu marka waxay qaateen dhaqankii dumarkii Canadian ka ahaa oo ninku haduu hadlo horta rag wada dhufaanayeen waan idinku bushaareynaya xagga nin fayoomi ma jiro marka dumarka Canadian bay noqdeen marka gabadh baa waxay tiri odayga bay igu adadka ma sha Allah haye maxaa dhacay Soomaaliya markan joogay waa taqaanaano ninku ku yar adag iyo dumarka Canada timi dawladda guri bay siisayo magaceeda iyo magaciisa way ku wada qortay check way siisayo lacag rabay u soo dhacdaayo magaceeda iyo magaciisuna way ku qoran yihiin caruurtana lacag baa lagu siiyaayo excuse me magaceeda ayaa lagu soo qoraa magaciisa lagu ma soo qoro Soomaaliduna way iska dhalan yar yarka Soomaalidu arag caruurta weyn dhalawan daadinaa sida digaaga
islaantii marka way yara lacagaysatay oo ninkii de markay Soomaaliya joogtay ay ku oran jirtay war hooyaday baa timiye bal wax ii dhiib ama walaashay baa laga dhintayaan in yaro masruuf u diray ii dhiib sheekadii way isbedeshayo ayadii baa lacagtii hayso asagii baa leh bal ii dhiib in yaro ku soo shaaheeyo asagii baa shahaadanaya waxa dhacday marka musiibada dhacday gabadhii marka way weynaatayba waana ninka masruufay tiri warday madbaxa gal bay tiri maanta waa arbacee waa maalinta hadii waan kugu soo qoreen madbaxa gal maana madbaxa gala maano hebela wanin geer jira waxay war ama albaabka qabso ama madbaxa gal naga tag buu yiri balaya madbaxa u gashay ma qorqodanahay wuu ka baxay albaabku qabsaday gabadhi marka ilaa iyo 6 caruur ay haysa Soomaaliduna waxay ku xuntay markay gabadha ay furaan ama ay ka tagaan caruurtana way raaciyaan Soomaha yar kana way nufurra gabigoodaba waxa dhacay gabadhi dhowr iyo 10 sanadood bay adkaysanaysa dhowr iyo 10 sanadood ayay ceebteeda qarsanaysay ilaa odaygii dabaday dhigtay aniga is xukumo bay leedahay gaari yaro waxay wadataa minivan ayada ay isu sarreysa caruurteeda ayada masruufta waxay isleedahay wadankii aqal ka dhiso caruurtii marka kuray miidhan noqoto de waa weynaaday caruurtii marka way iitimi waxay tiri caruurta igu caawi caruurta maxaa ku dhacay caruurtii waxay ka noqdeen laba mid sakhraana oo khamriga sida isku shubaya iyo mid noqday qowm luud oo qowm luud noqda Soomad garan laba de waxa xeereeyay fanaal kala dhacay maxaan sameeyaa odagii aynu soo lad qabanay way aynu soo celino odagii dib loo soo celiyo odagii waanu soo celinay dadka buufu ku jiro inta ka saaro buufka moogsi waanu soo celinay ilaa waxa weeye oday aan caruurti ka maqnaa 12 sanadood iyo charger yar ku odagan guriga dhex taagan waa la yaabayn hooyadiiba ku yiri who is this kani waa ay horta saytari kani waa aabaha makasuul xagu ku maqna inankii iyo inantii iyo inamadii iyo hablihiiba odaygiina ma arki karaan islamana fahmayaan isma arki karaan odaygiina waxa ku qufulan war fariiso hadii kale inaan waan ku karbaashi doonaa asaguna waxa uu kula ima taaban kartay dawladdan aniga walayna booliska kugu yeero inaan god kugu toori waxa dhacday marka tarbiyadii meeshii way ka maqan tahay shabaabka yagi ma hablihi mise inamadi hablihi ilaahay wuu noo hanuuniyay oo hablaha waxa gacanta noogu haya hooyooyinka waayo hooyada Soomaaliyeed si walba hawaalato waxa ka dhaadhacsan ninku meelu mu ka soo bixi haska waasho khamriya soo cabo cid ha soo dilo jeel ha soo maro in waxa soo xado ama tacliinta ku xumaad meelu mu ka soo bixi inanta laakiin way ilaalinaysaa waxay isleedahay ceebteedu waa ceebtaada oo hadii berito ay soo uureysato ama meel lagu arko cid albaabka isa soo taagaysa ma jirto marka habliba committee waxaan haday dumarku hablayaba iyo ibnaba committee lahaayeen umadu way noo hagaagi lahayd habli marka tacliin bay yeesheen way soo hagaageen inamadi laakiin way naga sii socdaan in yaro ilaahay u naxariista mooyaan waxaan u jeedaa waxaas oo uga jeeda tarbiyadii islaamika ahayd aanu u baahnayd ka bulsho horta meeshii ma joogto idinkana ka mujtamac Soomaaliyeed hadii aan caruurta la hanuunin oo hareeraha aan laga qabanin dad la soo dhaweynin ayaguna albaabka ay qabsanayaan qabyaalad khayaanooy qabyaalad khasaarooy
tii qaranka dumisaay quwadii dalkeeniyo wixii qabab inoo yiil midii kala qorshaysaay kala qoloqolaysaay haddana soo qaxisaay jahliga qodobadiisaay cilmiga qoonsigiisaay boobka qiimigiisaay balaayada khadkeedaay wixii tegay ma tuurnaa timaamadan ma qabanaa tilaabteenna akhriyo talagal mau samaynaa